Diyaaradaha dagaalka Ruushka ayaa ka hortagay kuwa dagaalka Mareykanka kuwaas oo ku soo dhawaaday hawada dalka Ruushka. Xaaladan ayaana ku soo aadaysa iyadoo uu xumaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee gaashaanbuurta NATO iyo dowladda Ruushka. Ciidamada cirka Ruushka ayaana ka hortagay laba ka mid ah diyaaradaha dagaalka Mareykanka kuwaas oo ku soo dhawaaday biyaha badda madow ee Ruushka. Wasaaradda dagaalka Ruushka ayaana xaqiijisay kadib markii kuwa Mareykanka ay ku soo dhawaadeen hawada wadanka Ruushka in la kiciyay laba ka mid ah diyaaradaha dagaalka Ruushka ee loo yaqaan Sukhoi 30 kuwaas oo ka difaacay hawada Ruushka. Diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee dagaalada fog ka qayb qaatay ee loo yaqaan B-1. Sidoo kale adeega digniinaha ciidamada qalabka sida ee Ruushka ayaa ka digay in dayuuradaha dagaalada fog ka qayb qaatay Mareykanka ay ku soo dhawaadeen hawada wadanka Ruushka. Wasaaradda gaashaandhigga dalka Ruushka ayaana sidoo kale xaqiijisay in diyaaradaha Ruushka ay si nabadgelyo ah dib ugu soo laabteen kadib markii ay eryadeen kuwa Mareykanka. Dowladda Ruushka ayaa joojisay wada shaqayntii gaashaanbuurta NATO, sidoo kale waxay xirtay xafiiskii NATO ay ku lahayd magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Russia Sergey Lavrov. Arrintan ayaa imaanaysa 2 toddobaad kadib markii 8 ka mid ah diblomaasiyiinta iyo saraakiisha sirdoon ee Ruushka uu qaabisha NATO la eryay. Diblomaasiyiinta Ruushka iyo saraakiisha ciidan ee Ruushka uu qaabisha NATO ayaana lagu soo koobay 30 ilaa 20 sargaal sanadkii 2018 kadib markii magaalada London ee wadanka Ingiriiska lagu sumeeyay sirdoonkii hore ee baxsadka ah ee Ruushka Sergey Skripal. Guddiga Ruushka uu qaabisha NATO iyo xafiiska NATO ay ku leedahay Moscow ayaana la aasaasay sanadkii 1998 si loo yareeyo xiisadaha labada dhinac, balse waxaa la hakiyay sanadkii 2014 kadib markii Ruushka uu la wareegay Crimea oo ka tirsaneyd wadanka Ukraine. Dhanka kale, madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka Putin iyo Biden ayaa la filayaa in ay kulmaan dabayaaqada sanadkan, sida uu shaaca ka qaaday aqalka looga arrimiyo dalka Ruushka ee Kremlin-ka. Kulanka ka dhaxeeya Putin iyo Biden ayaa la filayaa in uu dhaco dabayaaqada sanadkan, sida uu shaaca ka qaaday afhayeenka madaxweyne Putin Dmitry Peskov. Waxaana intaasi ku daray in mas'uuliyiinta labada dhinac ka kala socday ka wada hadleen goorta la kulmayo iyo goobta kulanku uu ka dhacayo, balse ma uusan bixin faahfaahin intaa dhaafsiisan. Waxa uuna warfidiyeenka u sheegay in dib ay uga soo sheegi doonaan wixii soo kordha. Putin iyo Biden ayaa shirkoodii ugu horreeyay ee foolka fool ahaa Geneva ku yeeshay 16 bishii Juun. Putin ayaana xusay in wada hadallada kaliya ee Moscow iyo Washington ay isku fahmi karaan ay tahay xeerarka dabacsan iyo xasiloonida istiraatiijiyadeed.